saxaabiyadda maanta waxaan kaaga sheekayn doonaa mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsan taariikhda. Ciwaanka qisadana waxa uu noqon doonaa istaag oo duug cunugaaga. Waxaad tahay saxaabiyad, qalbigaaga iyo ruuxdaadana waxay jecel yihiin dadkii hore ee wanaagsanaa. Mar walbana waxaa isku daydaa noloshaada inaad ka dhigto sida noloshooda oo kale, waayo waxaa og tahay dadka wanaagsan oo la isku ekaysiiyo inay wanaagsan tahay. saas darteedna waxaa ku dadaashaa mar walba inaad wax badan ka ogaato noloshooda. Saxaabiyadda, geeridu waa martida keliya ee la hubo inay booqanayso guri walba. Abu Dalxa al-Ansaari waxa uu joogay wiil aad u xanuunsanaa. Abu Dalxa ayaa wuxuu aaday markaasi beertiisa, kadibna wuxuu sii aaday masaajidka. Intii uu maqnaa ayaa waxaa dhintay cunugii yaraa. Abu Dalxa xaaskiisa Sulaym ayaa dhaqday meydkii oo karfan u xirtay, kadibna waxay geysay sariirtiisa sida qof hurdaya oo kale. Abu Dalxa ayaa markii uu soo laabtay xaaskiisa wuxuu weydiiyey sida uu yahay wiilkiisa. Waxay tiri sidii hore uu ka wanaagsan yahay. Kadibna waxay u keentay cunto, waa uu cunay, kadibna isagii xaaskiisa ayaa aqal galeen. Hooshooda markay dhammaysteen ayay ku tiri istaag oo soo duug wiilkaaga. Waagi markii uu baryay ayaa Abu Dalxa wuxuu u tagay nebiga isagoo u sheegayo waxay samaysay xaaskiisa Sulaym. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu yidhi ma aqal gasheen xalay? Wuxuu yidhi haa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu dhahay Alle ha idin barakeeyo. Habeenkaas barakadiisa kadib 9 bilood Sulaym waxa ay dhashay wiil ducadii Nebiga sallallahu calayhi wasallam qabo. Sulaym ayaa markay dhashay cunugii, ninkeeda ayay ku tiri ugey Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Cunugaas yar wixii ugu horreeyay afkiisa galay waxay ahaayeen candhuufta Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa Abu Dalxa wuxuu ka qaaday cunugii, waxa uu nagu yiri wax ma wadaa? Wuxuu yiri timir ayaan wadaa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa afkiisa inta ugu rogay cunugii yaraa afka u geliyay, waxa uuna magaciisa ka dhigay Cabdullaahi. Saxaabiyadda, waxba ha degdegin oo ha dhihin Sulaym waxaa ku yaraa dareenka hooyanimo. Sidee ku samaysay waxaasoo dhan iyadoo wiilkeeda uu ku jiro karfanta? Ogow inuu qalbiga aad u xanuunayay, ayna niyad jabsanayd sida hooyo cunugeeda weysay oo kaleba. Balse iimaanka ayaa ah midka haddii uu dego qalbiga dadka ka dhigaya nooc kale. Sulaymna waxay ahayd buurta sabarka iyo iimaanka. Sidoo kale waxay ogeyd sabarkii inuu yahay qacda hore. Waxay kaloo ogeyd haddii ninkeeda ay ku soo dhoweyn lahayd khaylo inuusan u soo laaban lahayn wiilkeeda. Saxaabiyadda, Zaynab oo ah gabadha Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa Nebiga sallallahu calayhi wasallam u dirsatay qof iyadoo ka dalbanayso inuu u yimaado maadaama uu cunugeeda ahaa sakaraad. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa u yimid cunugii yaraa oo nafti ka sii socoto. Markaas ayay indhihiisu ilmeeyeen. Sacad bin Cubaada ayaa wuxuu yidhi maxay tahay rasuulkii Allow? Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu yidhi waa naxariisu Allah subxaanahu wa tacaala dhex yeelay qalbiyada addoommadiisa. Ilaahayna wuxuu u naxariistaa addoommadiisa kuwa naxariisto. Saxaabiyadda, markuu kaa dhinto qof inaa oyso kama dhigno inaad ka hor imaanayso qadarka Alle, waayo qofka mu'minka ah waa qof qalbi jilcan oo dareen wanaagsan. Nebigaaga iyo xabiibkaagana waa kana isagoo oynayo markuu arkay gabadhiisa wiilkeeda oo dhimanayo. Ooyinta mar walba ma ahan daciifnimo, xilliyada qaar waa nafis oo nafta ayaa u baahan. Saxaabiyadda, Cabdullaahi bin Mascuud radiyallahu canhu ayaa markii loo sheegay geerida walaalkiis ayuu ooyay. Waxaa lagu yidhi maxaa u ooynaysaa? Wuxuu yidhi wuxuu ahaa walaalkayga, sidoo kale waxaan ka wada mid ahayn saxaabada Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waxa ana jeclaystay inaan ka hor dhiman lahaa. Tanna waa naxariis oo Allah subxaanahu wa tacaala dhex yeelay qalbiyada addoommadiisa oo shaqo kuma lahan bani aadamka. Tanna waa naxariis oo Allah subxaanahu wa tacaala dhex yeelay qalbiyada addoommadiisa oo shaqo kuma lahan bani aadamka.